dagaalkii qaboobaa ee muddada dheer ka dhex xaloosnaa bariga iyo galbeedka dunida waxa ugu kululaa ku tartankii dhanka teknolojiyadda iyo kii kale ee dhanka macluumaadka sirdoonka oo ay wehelinaysay ku tartankii dhanka ideolojiga ee qarnigii 20aad ee dhaafay waxaana in maraykanku isu dhigayeen inay ku guulaysteen tartankii dhanka hawada sare laakiin khubaradii nololeed bartamihii qarnigii 20aad ama lixdameeyadiisii waxa ay u sharaxeen midowgii Soviyeeti inuu u qalmay inuu noqdo ka ku horeyn lahaa tegitaanka dayaxa. daba su-aashu waxay tahay maxay midowgii Soviyeeti caalamkooda uga taagi waayeen dayaxa dushiisa maadaama waqtigaasi uu ahaa xilligii ay Soviyeetku ku horeeyeen ku tartanka dhanka hawada sare iyagoo dayax gacmoodkoodii ugu horeeyay samada sare u diray sanadkii 1956 iyagoo madaxyo kale oo la xidhiidhana hawada sare u diray sanadihii 1959 waxaana ku xigtay inay sanadkii 1961 hawada sare u direen qofkii ugu horeeyay ee bani aadama waxaana uu ahaa cirbixiyeenkii gaashaanle Yuri Gagarin isagoo saaran dayax gacmeedkii Vostok 1 sanadkii 1962 markii uu madaxweynihii Mareykanka John F. Kennedy jeediyay khudbadihiisii caanka ah ee uu ku soo bandhigayay inay Ameerika ku guuleysatay gaaritaanka hawada sare dhankiisa haba yaraatee hogaamiyihii midowga Soviyeeti Nikita Khrushchev ma beenin mana cadaynin mana sarin wax xog oo ku saabsan inay midowga Soviyeeti ku tala jiraan tegitaanka dayaxa dushiisa iyo in kale laakiin waxa uu ku goodiyay oo ku faanay horumarka uu dalkiisu ka sameeyay sawaariikhda balastikada ee qaaradaha isaga goosta iyo quwadda kale ee military ee istiraatiijiga ee ay yeegleeleen midowgii Soviyeeti xilligaasina waxaa dalka Soviyeetka gudihiisa laga waday qorshayaal ay khubaradii isugu timi oo lagu doonayay in qiimo kasta oo ay ku kacdo dayaxa la tago khubarada Ruushka waxaa ka mid ahaa hal abuurihii dayaxa gacmeedada Soviyeetka Sergey Pavlov oo ahaa nin ammaankiisa si weyn loo ilaaliyo oo looga baqayay mission ay u dhigaan sirdoonka dalalka reer galbeedka ee midabada badan waana khabiirkii injineeriyad ahaa ee ay ilaalin jireen guutooyin ciidamada oo ku filan inay dalka la qabsadaan waxaana daah u ahaa oo ku gaban jiray inuu yahay nin sameeya nashqadaynta diyaaradaha oo kaliya waana ninkii alifay agab badan oo guul soo hooyay qorshayaashii hawada sare ee wadankiisa waxaana ka mid ahaa labadii mashruuc ee Sputnik iyo Vostok waxaana ahaa ninkii awoodiisu kor sii kacday markuu lugtu qaado iyo kelmadii afkiisa ka soo baxdaaba ay xidhiidh la yeesheen tartanka hawada sare waxaana kalkaaliyaashiisu ka shaqeeyeen howlgalladii lagu kormeeray meerayaasha Mars iyo Jupiter laguna hagaajiyay oo kor loogu qaaday saanada isgaarsiinta tasardoonka iyo dayax gacmeedada ee u gaarka controlka isbedelka cimilada iyo waliba casriyeyntii sawaariikhda plastikada ee qaaradaha isaga guusha laakiin caalamkaasi Sergey Pavlov waxyaabihii caqabada ku noqday inuu guulo taariikhda sii gaaro waxaa ka mid ahaa tartankii gudaha ee ay kula jireen khubaradii kale ee dalkiisa u dhashay gaar ahaan caalamkii nashqadaynta saanada ciidamada iyo tahawada sare aadka u yaqaanay ee Vladimir Geloma oo ay qaraabo dhow ahaayeen hogaamiyihii Soviyeetka ee xilligaasi Nikita Khrushchev xilliga dacalka galbeed ee caalamka barnaamijkii hawada sare ee Mareykanka ee Apollo ayaa horumar ka sii sameynayay waana arintii warwarkeedu fadhiga u diiday khubaradii Soviyeetka oo iyagu awoodi waayay inay ku mideeyaan dadaalkooda oo hal meel wax isugu geeyaan iyagoo soo saaray ilaa 30 nashqadood oo kala duwan oo u kala qaybsan gantaalaha ridada dhexe iyo dayax gacmeedada hawada sare sanadkii 1964 waxaa hogaamintii Soviyeetka lagala wareegay Nikita Khrushchev waxaana xafiiska yimi Mr. Leonid Brezhnev oo dhammaan hawshii nashqadaynta saanada istiraatiijiga ah hoos keenay khabiirkii Sergey Pavlov waxaana uu dejiyay qorshe uu ku doonayay in aan laga hadlin barnaamijka ilaa uu dalkiisu isdul taago dayaxa dushiisa qorshaha oo ku muteeyay gaaritaankiisa sanadka 1967 taariikhda oo ku beegneyd konton gurada ka soo wareegtay kacaanka Ruushka waxaana ku adkaatay Kolorev sidii uu dhameystiri lahaa dayax gacmeed qaadi kara miisaan culus taa darteedna waxa uu sameeyay gantaalka dayax gacmeedka xambaara oo quwadiisu aad u sareysay xilligaas Soviyeetku waxay haysteen miisaaniyad iyo kaabayaal ka yar kuwa ay Mareykanku u isticmaalayeen sahminta hawada sare waxaana lama huraan loo arkay in arrinta la daboolo taasoo ay Soviyeetku ku guuleysteen waxaana jirtay in Mareykanku isticmaalayeen ilaa 4 dabdhaliye oo cudud u ahaa gantaalaha xambaara dayax gacmeedada xilli ay khubarada Soviyeetka ee Pavlo Kolorev horkacayay ay adeegsanayeen mashiino leh 30 dabdhaliyaal yaryar laakiin tayadooda wax soo saar ay aad u sareysay
waxaana ahayd nidaam dabdhalineed oo faa'iido laga helay kaasoo u samaysnaa habka isu gudbinta heerkulka dabdhalineed ee lagama maarmaanka. waana farsamadii guushii ay sofiyeetku ka gaadheen ay la yaabka ku noqotay culimmadii maraykanka oo iyagu inkastoo ay hindisaha hayeen haddana ka hawl yaraystay ku dhaqaaqeeda in la fulin karana aanay suuragal ahayn. sanadkii 1966 waxaa dhintay khabiirkii sofiyeetka Pavlo Kolodiev. geeridiisuna waxay dhabarjab ku noqotay barnaamijkii hawada sare ee midowgii sofiyeeti maadaama uu ahaa caqligii ay hawsha guud ku socotay ee barnaamijka kala dabari. waxaana shaqadiisii la wareegay ku-xigeenkiisii Fashil og inkastoo lagu tilmaami jiray nin aan booska u qalmin. si kastaba haatee midowgii sofiyeeti waxay go'aansadeen in hawshaa lasii dardargeliyo oo la sameeyo ilaa 14 tijaabo oo hawada sare lagu tegayo, kuwaasoo 12kooda u horeeya aan wax dada la saarayn, labada ugu dambeeyana la raacin doono dad cirbixiyeena. 20kii bishii February 1969 ayay ahayd markii ay sofiyeetku shaqagelid u diyaariyeen gantaalkii ugu horeeyey, laakiin markii la istaadhay baa waxaa bilaabatay in mashiinada mid ka mid uu shaqayn kari waayo, sidoo kalena hanaankii shidaal qaadashadu uu daciif noqdo, taasoo yaraysay quwaddii gubashada ee keeni lahayd inuu cadaadiska dhashay dartii uu gantaalku goosto. waxaana ololkii ka baxayay heerkulkiisu uu noqday mid wada gaadhay gantaalkaasi oo isagu 28 ilbiriqsi oo keliya kadib markii uu kacay uu dabi wada qabsaday oo ololay, kadibna sida buskudka oo kale u kala daatay. kadib baaritaano iyo hubin dheeraada oo la sameeyey bishii Juun ee isla sanadkii 1969 waxay midowgii sofiyeeti dareen gantaalkoodii labaad wax yar kadib markii uu kacayna waxaa qaraxday haantii oxygen-ta ee mashiinka number 2, taasoo keentay in gantaalkaasina wada dhalaalo oo soo dhaco. qaraxii soo dhicitaankiisana waxaa loo haystaa inuu ahaa qaraxyadii ugu waaweynaa ee taariikhda soo mara maadaama uu xambaarsanaa shidaal gaadhaya 2300 tan oo mashiinada kala duwan ay qaadanayeen. waana qarax u dhigmayay qumbalad nukliyeera oo miisaankeedu yaryahay. waana gantaalkii baabiiyey masaafo ballaaran oo uu ku jiray beyskii ama xaruntii uu ka kacay gantaalkaasi, waxaana burburkiisa laga soo ururiyey masaafo 10 kilomitir. kadib 17 maalmood oo keliya qaraxa gantaalka ay sofiyeetku lahaayeen ayaa cirbixiyeenkii dalka maraykanka ee Neil Armstrong waxaa u suura gashay inuu dayaxa ku dul istaago. hawsha oo qayb ka ahayd shaqadii barnaamijkii Apollo ee qaabilsanaa sahminta hawada sare ee Maraykanka, waxayna ahayd calaamadii muujisay in midowgii sofiyeeti lagaga hormaray u kala tartankii dayaxa dushiisa ee labada wadan u dhexeeyey. laakiin taasi kuma keenin sofiyeetkii wax niyad jab umana muuqan inay isdhiibeen, laakiin waxay sii wadeen dadaalkoodii. midowgii sofiyeeti waxay sii wadeen tijaabooyinkoodii, waxaana mar kale lagu guuldaraystay tijaabadoodii saddexaad iyo afraad oo ay kala sameeyeen sanadihii 71 ilaa 72. waxaana la bedelay Master Fashil og oo madax ka ahaa hawsha sahminta hawada sare. hawshiina waxaa loo magacaabay Master Brzezinski. sanadkii 1976 waxaa la joojiyey qorshihii sahminta hawada sare ee sofiyeetka ee noociisu waa N1, waxaana la bilaabay in la yareeyo xajmiga dayax-gacmeedada, oo aana dhacdooyin iyo macluumaad qarsoodi ahaa oo bannaanka loo soo saaray markii uu dalkaa hogaaminayay Mikhail Gorbachev. waxaana tijaabooyinka badan ee ka fashilmay sofiyeetku ay ahaayeen sababihii keenay inaan calanka waddankii midowgii sofiyeeti lagu arag dayaxa dushiisa.